xafladan ayaa waxa ay ahayd mid ay soo qaban qaabiyeen jaaliyada Soomaalida ee ka soo jeeda gobolada dhexe ee dalkeena Soomaaliya isla markaana ku nool magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika ayaa waxa lagu taageerayay musharax Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo taagan maamulka la filayo in dhammaan loo sameeyo gobolada dhexe ee dalkeena Soomaaliya goobta lagu qabanayay xafladan ayaa waxa soo xaadiray qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida wax garad aqoon-yahano waxaana goobtaasi aad loogu xardhay sawirro iyo erayo lagu muujinayay taageerada ay u hayaan jaaliyada ka soo jeeda gobolada dhexe ee dalka musharax Cabdiraxmaan Diinaari dadkii halkaasi khudbadaha kala duwan ka jeediyay ayaa aad u bogaadiyay mudane Cabdiraxmaan Diinaari waxayna sheegeen in xilkaani uu ka soo bixi karo maadaama shaqooyin badan oo hor ugu soo qabtay bulshada Soomaaliyeed uu ku soo guuleystay oo aan ku soo dhaweynayno ama aan ku taageerayno guud ahaan maamul sameynta gobolada dhexe ee Soomaaliya si gaar ah haddii farta u sii gudo xafladan waxaa dhalinyarada qabanqaabiday ay ugu magac dareen inay si gaar ah ugu taageeraan mid ka mid musharaxiinta oo magaciisa la yidhaahdo ambashada Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari waxaan ilaahay ka baryaynaa in cadaalada ilaahay ku soo bixiyo خاصة وحن لنا عبد الرحمن ديناري واحد ما كتبنا سيدا تعبتي ولا شيء ولا شيء أنا ولا واحد ما كان معنا إلهي وحن لنا هوا بتيو متو بوليستان ولا حقيقة متو عدالة فلا قبل لا وحا حسوس يقول رأيتي والله صعدي النقاقيسي وقتي أو سفير كأهاي صوت سوداء رنتي وأنا أديه كرو وقوقل ما مانتا تي سلام كبعد وحان aan u hambalyeynayna oo taageeradiisa u joognaa musharaxa maamulada loo dhisi doono gobolada dhexe ambassador Cabdiraxmaan Diinaari waxaan u maleynayaa inaan dhammaantiin aad hiil iyo hooba aan ku taageeri doono dhammaanteen midaas waa midda waxaan halkan iskugu imaanay in aan taageero buuxdo oo dhammaan ah na aan siino rijaal oo nisaa weyn in yar iyo caruur haweenkeena waalidiinkeena kulligeen dhan in aan taageerno halkan iskugu imaanay waxaan taageeraynaa ambassador Cabdiraxmaan Nuur Diinaari xafladan ay jaaliyada ka soo jeeda gobolada dhexe dalkeena Soomaaliya kuna nool magaalada Cape Town ay taageerada ugu muujinayeen musharaxa u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee maamulka gobolada dhexe dalkeena Soomaaliya ayaa waxa ay qayb ka tahay xaflado kuwan la mid ah oo ay dhigayeen jaaliyada gobolada dhexe ee ku nool dalalka qurbaha Cabdullaahi Maxamuud Amiin Cabdullaahi Qorshe warbaahinta qaranka Soomaaliya Cape Town South Africa